السلام عليكم soo dhawaada asxaabta aan jecelahay kuna soo dhawaada barnaamijkeena taxanaha ahaa ee shakhsi caan ah iyo sheekadiisa qaybtii afraad oo aan maanta kaga hadlayna youtuberka weyn ee ogaansho. Fadlan intaana muuqaal guda gelin farxad ay ii tahay inaad channelka subscribe dhahdo, muuqaalka like saarto, mahadsanid. Ogaansho waa channelka magaciisa balse shakhsiga ogaansho muuqaalada ku soo gudbiya magaciisa waa Cumar Inshaar. الرحمن الرحيم الحمد لله أرتوا يعني طلابس dhinaca wanaagga loo qaado marka hore waxaan halkan uga hambalyeeynaa channelka ogaansho kaasoo maalmo ka hor gaaray 1 milyan subscribe. Waxaan leeyahay hambaliyo xaqiijinta 1 milyan oo qof ah run ahaantii maaha wax sahlan, waadna u qalantaa inta iyo in ka badan. run ahaantii aniga fikirkayga waxaan isleeyahay mar hore ayaad u qalantay inaad 1 milyan gaarto. waxaa farxad ii ah inaan ka mid noqdo milyanka subscribe 5 sano u dambeysayna aan la socday muuqaaladaada waxtarka leh. run ahaantii ani ahaanteeda saameyn gaar ayaad igu leedahay nolosheeda, waxaan dhihi karaa wax badan ayaad ka bedeshay, wax badanna waan ka faa'iiday muuqaaladaada. maanta inaan YouTube-kan muuqaalo ku soo gudbiyo Allah ka sokow adiga ayaa ka dambeeyay, taasna waxaa sabab u ahaa muuqaaladii waxtarka lahaa aad soo gudbinaysay, waadna ku mahadsantahay. waxaan filayaa inaan ku dheeraaday furfuridda muuqaalka, aan dib ugu soo laabto ujeedada dhabta ah ee muuqaalkana maanta. marka hore ogaansho waa channel lagu soo gudbiyo muuqaalo kala duwan sida buugaagta waxtarka leh, sida buugga aad intiina badan wada taqaanaan Rich Dad Poor Dad, sidoo kale buugga The First 20 Hours How to Learn Anything, iyo weliba buugaag badan oo aanan hadda halkan ku soo koobi karin sida Deep Work, The Black Swan, The Richest Man in Babylon, iyo weliba kuwa badan oo aanan hadda magacyadooda kor ka xasuusan, ayadoo la fiirinayo in buug kasta uu saameyn kugu yeelanayo. sidoo kale wuxuu soo gudbiyaa muuqaalo dhacdooyinka caalamka iyo weliba kuwa islaamka quseeya. sidoo kale wuxuu soo gudbiyaa oraahyo waxtar leh iyo barnaamijyo kala duwan oo xiiso leh. marka hore Cumar Inshaar wuxuu ku nool yahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. wuxuu YouTube-ka ku soo biiray sanadkii 2017 xilli ay adkeyd in channel sida ogaansho oo kale ay dadka ku soo xirmaan, ayagoo ka doorbidaya youtuberada kale ee madadaalada soo gudbiya sida reactionska, pranks-yada iyo weliba muuqaalada iska qosolka ah oo aanan waxba kugu soo kordhinayn. intaa kadib Cumar Inshaar wuxuu bilaabay inuu muuqaalo kala duwan ku soo gudbiyo channelkiisa, sida muuqaalo uu kaga hadlayo wadamada qaar, badooyinka, culumta samaawaadka sida meerayaasha. sidoo kale muuqaaladiisa ugu saameynta badnaa waxaa ka mid ah 2 muuqaal uu kaga hadlay taariikhda Soomaaliya, bariga Afrika. maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dalka Soomaaliya. markaan leenahay Soomaaliya waxaan ula jeednaa dhulka taariikhiga Soomaaliyeed. dhulka Soomaaliyeed ee kumanaanka sano horta ahaa 100 sano 200 sano waxba kama ahan taariikhaha ummadaha. sidaas darteed kala qaybinta ku dhacday dhulka Soomaaliyeed 150 sano u dambeysay wax qiimo kuma lahan xuduudka taariikhiga dalka, waana arrin ku qoran kaliya bogagga taariikhda. intaa kuma ekaan, sidoo kale wuxuu soo gudbinayay muuqaalo dhiirigelin ah iyo weliba buugaag badan oo waxtar leh. aabba qani ah, aabba saboola. mid ka mid ah buugaagta ugu muhiimsan ee laga qoray waxa la xiriiro afkaarta iyo sidaan u aragnay qaninimada iyo saboolnimadaba. in saboolnimada iyo qaninimada uu u dhexeeyo kaliya xuduud yaro lagu magacaabo qaabka aan u fikirayno. waxa ugu muhiimsan inay yihiin afkaarta. magaca buugga aabba qani ah iyo aabba sabool. muuqaaladiisa ugu daawashada badnaa waxaa ka mid ah muuqaal uu 5 sano ka hor uu soo geliyay, kaasoo uu kaga hadlayay dhibaatada daawashada muuqaalada galmada ah. waxaan rajaynayaa muuqaalkan kadib in ciddii ku imtixaanan fiirsashada muuqaalada galmada ay dib dambe u daawan doonin insha Allah. ka istaagidda fiirsashada muuqaalada galmada ma ahan arrin doorasho ah ee waa mid qasaba haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol dhadhan leh. maanta waxaan garaacaynaa albaabka mowduuc aad u halisa oo aan wax badan ka labalabay ka hadlidiisa. waa mowduuc aanan la iska indhatiri karin. waa mowduuc waxyeeladiisu ka khatarsan tahay khatar waliba. waxaan ilaahay ka rajaynayaa mowduucan kadib in cid walba oo ku imtixaanan fiirsashada muuqaaladaas ay ka istaagi doonto. waan youtuberka keliya ee Soomaali ah inta ugu badan ka hadla dhalinyarada siday iskaga dayn lahayd daawashada muuqaalada galmada iyo weliba caadada xun ee ah inaad adiga dib iskugu laabato. waxaan dhihi karaa ku dhawaad 10 muuqaal inuu ka sameeyay oo uu kaga hadlayo arrinka iska daynta caadooyinkii aan soo sheegay. sidoo kale muuqaaladiisa waxaa ka mid ah mar uu dalka dib ugu soo laabtay in uu muuqaalo taariikh ah ka sameeyay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya sida Muqdisho oo uu goobo taariikhi ah ka tagay. waxaan booqan doonaa masaajid 100 sano ka hor la dhisay. muuqaalkan wuxuu ku tusi doonaa in xamar ayna ahayn sida aad u malaynayso. waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah masaajidda ugu qadiimsan Afrika. masjidkan
waxaa lagu tilmaamaa masjidka toddobaad ee qaaradda Afrika oo dhan ugu horreeyay. wuxuu ku yaalaa agagaarka xeebta Sugunda Liido, waana masjidka Fakhruddin Zanki. masjidkan waxaa la dhisay taariikhdu markay ahayd 1269 miilaadi oo ku beegan 667 hijri. iyo Garowe iyo weliba ilaa Saylac masjidka Qiblateynka. Garowe Nugaal 2 bishan August waa isniintii la soo dhaafay. waxaan ballan la lahaa booqashada magaalo ka duwan sidii aan u maleynayay dhinaca weyninka qadiimka ahaa ee asalka inuu wali taagan yahay dhinacan markaad ka soo gasho inaad arkayso masjidka Qiblateynka. laa ilaaha illa allah. haddii aan si kale dhinacan ka soo galno taas waa mixraab, waa minbar ku wajahan. intaa kuma ekaan, sidoo kale wuxuu sameeyey channel kale oo uu ku magacaabay Cumar Inshaar, kaasoo uu kusoo gudbiyey podcastiyo ka badan 100 kuwaas oo uu ugu magac daray Fandhaal podcast kastana uu kaga hadlayo mowduuc muhiim ah bulshadana waxtar u leh. maanta Cumar Inshaar waa mid ka mid ah youtuberada loogu jecel yahay guud ahaan Soomaaliya, muuqaaladiisna aad loo xiiseeyo. anigaba aan kow ka ahay ilaa 2018 aan ku xirnaa channelkiisa Ogaansho. haddaba muuqaalkeena maanta aan kaga hadlaynay sheeko yar oo ku saabsan Cumar Inshaar intaan ayaan kusoo koobayaa. tan iyo intaa ku kulmi doono muuqaal la mid ah, waa anigoo Cabdisalaan, waxaan idinkaga tegayaa nabad ahaada.